Hello my people, my beautiful people. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How you doing? Yeah. maanta sarahan kasoo qaatay sheekadeeda maanta sarahan ay ku kooban tahay iyo Turkiya waxa ka dhacay Turkiya gabar hadda dhow is aragnay oo shaqeyn oo from Turkish and half waa Russian wax isku dhex jiro waaye ninkeeda laakiin Turkiya iyadana Russian iyo Turkish waxa isku dhex jirjirayaan waaye laakiin guriga ku leeyihiin Turkiga hada bilay ku noqoneed mar vacation iska aadaa sodohdeeda iyo family sodogeeda ayaan hore meeshan ku dhintay laakiin family-ga ninkeeda degan waa dad isku fiican macjug isku ah maasha Allah ilaahu barakeeyo nolosha markaan maanta Turkiya gabadha ii sheegtay dhul gariir ka dhacay today dhul gariir ka dhacay wallahi billahi waa cabsi waaye saraas camal ay ku yaalay Turkiya hal mar dhulka jag ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka siiyay ficil wada dheheen bini'aadamka ku dhex jiray iyo xoolihii ku dhex jiray dadkii taajiriinta ahaayeen intaasoo sano awowyaalkooda lacagtii ka soo gaareen 45 minutes ay hantidooda ku beereen 80,000 people ku dhimatay gabadha maanta ii sheegaysa because qofka waxa ka xanuun badan marka meesha aad u dhalatay oo family-gaaga degan yihiin waa kaga xanuun badan yahay qof kale mugta ana hadda ma aqaan Turkiga weligeed ma tagin marmara waxaan fiirsan jiray musalsalyaalka iyaga Soomaaliga soo kosaaraan aan fiirsan jiray dad qurux badan dad masha Allah Turkiga they grow up hadda way soo koraayeen intaasoo sano cunug qabataan saarnaa hadda waxa cunug qabitaankay ka baxayeen waxa waaye dad oo soo halgamo waaye strong people dad horumar badan soo biyay ahaayeen moviyal badan ay soo saarayeen hadda moviyalka oo maanta adduunka marka u fiirso moviyal qatar ay soo saarayeen musalsalaad ay soo saarayeen waxa kale business waa aragtay rooga Turkiga waxyaalo badan ayagana maasha Allah soo saarayeen dhinaca businesska horumar ay ka suubinayeen ana muddo kale dad isku diina ama naftirkoodii waa dad kala isku dhex jira waaye inkastoo dad muslimiin ay wadi qaarkood u badan yihiin laakiin diinta ninkii hore madaxweynaha ka diinta wuu kula diriri jiray dowladooda xare ninkaana maasha Allah diinta iyo islaamnimada iyo waxaas soo dhaweeyay isaga naftirkiisa faraa ku godan dad badan oo muslimiin oo aqoon u diri jiray meelaha hadda Suuriya uu ka qayb qaadan jiray burburka Suuriya ilaa hadda laga baqo Soomaalida raale Turkiya dhahan laakiin Allah hawla wala quwwata illa billah sometimes marka muddo kalena waa dad xooga cunsuriina oo ma arkin oo dadka kale ajnabiga aad u nacab inay soo dhex galaan sida ala sheegay dadka Siiriyaanka dhibaato badan u geysan jireen ku dhex jiray Soomaalidana hal Soomaali meel tagaayo wuxuu leeyahay meeshan waa fiican waa la soo wada duudaa America kuma jooga meesha u guur ana waxaan la yaabaa baraf ku guur I don't know idea markan fasaxaadka meel kasto yaala hadda guureys wadanka u guura wadanka xabada iska xaqada ku dhacdo xaqa u leedahay xalaal waa Soomaali xabad xalaal ay ka tahay marka laakiin baraf u guur ana ma go Allah ay dadka soo horjeeda baraf u guur tawrmay laakiin ana ma guura Soomaali aadooyana Soomaali lamba madaxa laga fujiyo ambuladaha laga dhufto amba heeray wala tahay laga cariiriyo waxba iga ma galin hada Soomaaliga qof duu ku dilaa qof kaada leh naqda ee dhan mugta ma Soomaali waaye ilaahay wadankeena nabad ha nooga dhigo dadkeena Allah is jecleysiyo waxaan odayaashan shanta oo caloosha burburin oo iyagana vilooyinkan ay rabaan inay dhistaan camal kuwaan tartan ay ku jiraan odayaasha dawladda isku sheegnartay nin walba bahasha camal roo inuu dhisto adoon markaas uu leeyahay war heer hebel soo kaca
sartaas oo kugu dhisnooyaa bay macaan abo macaan heer hebla lagu dhahay sartaas lagu dhisnooyaa hadaa gargaraacid ganjeelka sartaas lagama furaay ma faant qof ilaa dartiisa u baratay waxa laga yaabaa in marka gurigiisa tagto walaal wax meeyst wax ku siiyo waxa laga yaabaa kooshaha lacabtid oo isku qabiil ahayn oo waxba isku ahayn kan qabiilkaagu warka qabiil maxaa kartaa kan adag ku dhishta oo jidkaaga tag laga yaabaa qabiil fog loo aadaabo ya qabiil man horta warkooda ma jiro kan adag ku dhishta jidkaaga tagaa daro markaan qofba isku haleynin waxa soo bikurto suubi markaan waxa waaye wallahi Turkiga loo duceeyo Turkiga loo duceeyo dawlad kasta wax bay ku cunta wax bay ku fiicantaa dawlad wada saliima adduunka ma jirto laakiin kuwa muslimiintu isku sheego ajnabiga ah Soomaaliya waxa waaye carabti waxaas faqiir soo jisay kuwa muslimiinta kale iyagana ma liibanayaalka lagu liibano waa iyagana kuwaas ay ku jiraan dadkan sarahan iskala dhulkan iskala ku liibano gaaskooda adduunkooda dadkana iskale Allah ka ilaahay ka raal noqdo anaga kale Mareykan aan ahay ana American woman God bless American tagana because wadanka aan ku noolahay waa alxamdulillah shukr waxa hooyadii aabe ay qabanin oo qof kale ay qabanin ay qabteen meel cillaah la igu dayacay adi kaliya ilmo kori labad ilmo Soomaali niman iga dhalay adi kaliya rafaan yaa qabtay American way caabsi shaqaan haysta in kastoo shaqaysto alxamdulillah alxamdulillah shukr ya rabbil alamin bis American noolato hajirto ilaa dhul Greek ka raga qabto dhibaatooyinka muslimiinta ka dhex jirtana ka qabto Soomaalina dhowda iska surooyin dhinacii waqooyi waa aragteen dad badan oo iska dildilaya macallin la'aan aniga tuulo dawlad u noqonay Soomaaliya laga helaa ya tuulo dawlad u noqonayso country-ga laga helaa ma Soomaaliya wadankeena laga helaa Soomaa gobol ana madaxweyne ana dawladku ahaana ifaalon garay ano following lasku haysto wadankeena laga helaa wasada oo hadda meel cidla isku dagaalay waxba oolin oo bustale ka is oo biil lahayn oo fruit lahayn oo wax laga cuno caawa lahayn isku haysta awdal isku suraa xitaa Soomaalida musubsadan hub dad siiyay oo meel ku daxaleystay 100 sano ka hor ayaa waxa lagu dhameynaa caruur iyo hooyooyinkooda Allah ya rahma Allah wax kala aan dhamaaqani hadaa la kala safatidna adiga leey ku taala yaa la safanaya ka safanaya markaan waxa idin dhahay Somali people peace and love madaxweynaha America muxuu dhahay Somali no peace no love no nothing all the time this way ana ku raxsanaa Trump is right markaan waxa idin dhihi lahaa qabiilka hawaaro nolosha hawaarto dulmiga haska waaro dulmiga bini aadamna data waa lagu dulmina qasab adduunka inta joogto wax ku dulmiyo waa badan ku dulminaa adiga dal lagu dulmin adaa wax dulminaysid adduunka absaas ku subsan nabi Muuse alayhi salaam ee ilaahay u cabaaday wuxuu dhahay yaa rabbi umada hadalada uma adkayso kuwa ay dulminayaan marka taasoo ilaahay subhanahu wa ta'ala u jawaab wuxuu dhahay inta adiga adduunka joogto waa lagu warheena waa lagu dulminaa nabiyaalkii absaas lagu dhacday marka intay joogta waa lagu dulminaa waxa way kaligaaga isku naqanaysaa waa lagu dhibaateena qof iska masaakiin data iska qalbi wanaagsan tahay dulmigu badan yahay dulmigu soo seeyaa jiro tulmi waweena jiro tulmi hadda waxa ka socda laascaanood hooy iyo caruurteeda gurigooda inta iska seexatay 6 caruur qurux badan heysatay ee qolkeeda gurigeeda soo xirtay ama facdowda loogu suro qofkii ugu suro I don't know ani heeray ma dhahay hooyada lixda cunug meeshay ku dhig baxeen markaas hadda waxaan dareemayaa aniga wax I grow up ani dagaalan soo dhax kornaa sheegay Soomaali koonfur galbeed I'm from koonfur galbeed dagaaltii ugu qaraareed xoolo la iska qaadanayo la isdhacaayo waxyaalo badan aan soo arkay okay markaan waxa waaye aniga hadda wadanka Soomaali dagaalkiis ugu cusbo dulmiga ma ugu cusbo laakiin
waxa waaye 2023 aa lagu jiraa. xeeb caleeg aniga aan kusoo dhex kornay ayayaan qarabnaa mar dhow ayay ilmeyna aroosooyo ma wadaynaa le ma wadaa le baash ma soconay laacan sano ma soconay مسكو ودينا هاي ضم مسكو ودينا حول الدول اسكو قات غريدو ولا اسكو دقي حمر هذا غرو كلا بر غريدو ولا دقي كذا او هاي markaas la maxaan ana iskale oo muhiim ana iskale hadana maxaan ana iskale hadana maxaas ana iskale ka waranta filida aan maxaan ana iskale waa dhul dado waxa la dhahay qofkii dhul dado wax yar taa ka qaato todobada jahannaba ku sii dhacdhaca aqar u dhacdhaca salma lahaanayo meeshan waa la isku faanooyaaba haa beeradadow dulmiga habaaro haliibaano dulmiga waa sheekada markaan allah u naxariisto kulli nafsin daaqatil mawt waa la dhimanayaa jooji dulmiga bro aqiro waxaan malaynaa soomaalida number 1 inay ku noqon doonaan naarta allah yar Somali go Are you Somali go? Lini manka Somali. Naga narway. Excuse me. I don't think so. Marka Allah noo naxariiso. Waa in salaamaya Turkiya haloo soo duceeyo dadkaas walaalihiin ah oo iska dhibaataysan waxa waaye fi dunya fi aakhirah إلهنا عافية. السلام عليكم my beautiful people. نسي صراحة سكروح إذا بدن نلك كدارن أقول حجرة النفط كي صرتاس لعكته صرتاس محاس صرتاس دير أنا جالس كل لعكته هاي بجد ها because أقول حشقية أنا أسكله ها حوقا كويس حوق يا عيد قاعد كرة يا واحد قاعد كرة يا معنا أسكال هابتاجنا هبنا باي have a good night